maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago laba meelood oo dembiga lagu dhaafo. haddaba labadaas meelood intee waaye, maxaana la sameeyaa sidii dembiga lagugu dhaafo? واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. walaalyaal barnaamijkan cusub la yiraahdo istigfaarta iyo fadaa'isheeda waa barnaamij usbuucle ah. maalin walbo talaado hal xalaqo ayaan soo deyn doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah. wala joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waa xalaqadii 15 oo ahayd istigfaarta iyo fadaa'isheeda. walaalayaal barnaamijkan istigfaarta iyo fadaa'ishiisa waa barnaamij isbuucle ah. maalin walbo talaado hal xalaqaan soo sii deynaa. xalaqadii la soo dhaafay waxaan ka soo sheekaynay 5 meelood dembiga lagu dhaafo. waa salaadaha faradka gadaashooda inaa 3 mar astaghfirullah tiraahid iyo 33 subxaan allah, 33 alxamdulilah, 33 allahu akbar iyo dhammaystirkoo laa ilaaha ila allah. faa'iido badanaa ka helaysa. waxaan rajaynaa inaa ugu noqotaan waa xalaqadii la soo dhaafay oo 14aad ahayd. maantana insha allah tacaala waxaan rabaa inaan ka sheekeeyo 2 meelood oo dembiga lagu dhaafo. nebi maxamed ayaa noo sheegay sallallahu calayhi wasalam 2 meelood waa halkee. meesha koobaad waa imaamka markuu suurat alfaatixa dhammeeyo, غير المغضوب عليهم ولا الضالين markuu yiraaho aamiin markaa dhehaysid waxaa fiirisaa imaamka markuu dhahaayo. dadka qaarkooda waxaa arkaysaa aamiin ma dhahaayo, ama imaamka intuusan wala daaliinta dhammayninuuba dhaha, ama dii kale dadka kale uu ka dambeeyaa. taasna ma fiicno. haddaa rabbi in dembigaaga lagu dhaafo imaamka waqtiguu dhahaaya dheh. nebi maxamed sallallahu alayhi wasalam wuxuu idaa ammana alimaamu fa amminuu. imaamka hadduu aamiin dhaho aamiin dhaha. fainahu man waafaqa ta'miinahu, qofkay waafaqdo aamiintiisa aamiinta malaa'ikada ay waafaqdo, gufira lahu maa taqadama min dembih. laa ilaaha ila allah. dembigiisa dhan waa loo dhaafaa. xadiidkana waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim. nebina maxamedna sallallahu alayhi wasalam waxaa ka wariyey abu hurayra radiallahu canh. meesha labaadne waa salaada dhexdeeda lewa. markaa rukuucda ka soo kacdid oo imaamka yiraahdo samica allahu liman xamida yiraahdo, waxaa lagaaga baahan yahay inaad tiraahid allahuma rabbana walaka alxamd. nebi maxamed sallallahu alayhi wasalam wuxuu idaa qaala alimaamu samica allahu liman xamida, hadduu imaamka yiraahdo samica allah, rukuucdii uu ka soo kacay, samica allahu liman xamida ayuu yiri, quuluu waxaa dhahday allahuma rabbana walaka alxamd dhaha. fainahu siitii horoo kale man waafaqa qowlahu, qowlkiisa allahuma rabbana walaka alxamd iyo qowlka malaa'igta hadday iswaafaqdo, gufira lahu maa taqadama min dembi, dembigiisa dhan waa loo dhaafaa. allahu akbar. xadiidkan wuxuu ku jiraa saxiixeynka. nebi maxamedna sallallahu alayhi wasallam waxaa ka wariyey asaxaabiyu aljaliil abu hurayra radiallahu canhu. haddaba walaalayaal labadan arrin aan ku dadaalno. imaamka yaan ka hormarin, wala daaliin intuu dhihin bayaan dhihin. markuu aamiin dhahaayo aan la dhahno, laanna hadday waafaqda taada tan malaa'igta waafaqda, haddii hal maalin ku waafaqda ka waran, dembiga dhan waa la dhaafa. sidoo kale samica allahu liman xamid, dadka qaarkooda samica allahu liman xamid imaamku markuu yiraahdo maba hadlaayin, ama samica allahu liman xamida uu leey qof walba mashquul oo maya hadhihini allahuma rabbana walaka alxamd, ama rabbana walaka alxamd. xamda sii badso, xamdan kathiiran tayiban mubaarakan fi. hadduu imaamku waqti ku siiyo sii badso, khayr allah ku siiyo. ugu dambeyntii walaalayaal, allah subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu dembigeena dhaafo, dembiga waalidkeenana dhaafo, na waafajiyo ta'miinteena iyo ta'miinta malaa'igta u iswaafajiyo. samica allahu liman xamida markuu imaamkii rabbana walaka alxamdadeena iyo tan malaa'igtana inuu iswaafajiyo. aamiin dhaha. jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum. walaalihiina kale usii gudbiya. waa inuu xalaqa soo socdo talaadada soo socoto iyo xalaqa cusub barnaamijka istigfaarta iyo fadaa'ishiisa. jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.